gudoomiyaha hay'adda dhowrista tayada Somaliland Muuse Xasan Xaaji Yuusuf oo shir jaraa'id ku qabtay xafiiskiisa waxa uu shaaca ka qaaday in maalintii Khamiistii ee la soo dhaafay madaarka cigaal ay ku qabteen diyaarad siday kiniin aan sax ahayn waxa uu sheegay in muddadaasiba ay hay'addiisu baaritaan ku waday kiniinkani waxaa Khamiistii oo ay taariikhdu ahayd 27 madaarka ka yimid oo aan xafiiskayga ku aragnay 3 kartoon oo 2 ay saliid ku jirtay iyo 1 kartoon oo capsule-kan imika idin muuqda uu ku jiray capsule-kan waad aragtaan wax haba yaraatee qoraali kuma qorna waxa uu yahay iyo wax kale oo sheegaya waxa uu yahay capsule-kan ma jiro taa ka sokow capsule-kan markaanu eegnay ee aanu furnay waa capsule maran oo wax dawo ah ku jira haba yaraatee ma jirto waxaana loogu talagalay capsule-ka si inuu ogsoonahay in uu dawo ay ku jirto waanu isweydiinay baaris baanu sameynay 2 mid bay noqonaysaa in dawo lagu shubayo dalka gudihiisa inta dawo lagu shubo dabadeedna dib looga iibinayay bulshada iyo in isagoo sidiisa ah oo maran dadka laga iibinayay arintaasi labada siyaaboodba khatar bay ku tahay caafimaadka iyo caafimaad darrada cidii dawada liqda capsule-ka maran inuu wax yeelayo waa la hubaa waxaanu dignin u diraynaa ganacsatada dawada ayaanu dignin u diraynaa annaga oo la kulanay dhamaadkii bishii hore warqadana maantaan xafiiskayga ka soo saaray oo nuxurkeedu yahay joojinta wax alaaliye wixii dawo ah ee wadanka soo galaya ee aan haysan waraaqihii sharciga waraaqahaas oo ah certificate of origin wax la yiraahdo ama shahaadada cadeynaysa asalka oo ay dalka dawada ay ka timid dalka ay ka timid iyo wax la yiraahdo packing list si loo ogaado waxa ku jira meeshan waa maxay waxaanu jeclaan lahayn in waliba aanu helo wax la yiraahdo certificate of analysis waxaan in la soo baaray dhinaca kale gudoomiyuhu waxa uu digniin culus u diray shirkadaha dawooyinka dalka keena waxaanu shirkadahaasi fariin u diray la xiriidha inay bulshada ka ilaaliyaan wax kasta oo waxyeeli kala warqadaas 1 February waanu hirgelinaynaa talaabo cad oo sharciyan waanu ka qaadaynaa shirkadaha ama hay'adaha caalamiga ah ee dalka dawooyinka keena ee shuruudahaas aanu soo dhignay aan haysanin shirkadii keentay alaabtan in hor yaalana talaabo cad baanu ka qaadaynaa hadii Ilaahay ka dhigo sharcigan u adeegsanaynaa laakiin waxaan u digaynaa ganacsatadu inay ummadda u turaan oo waxyaabaha waxyeelaya ee ay waxani ka mid yihiin dawada maran ee laga iibinayo bulshada waliba iyaga oo xanuunsanaya talaabo cad baanu ka qaadaynaa muhiimadda koowaadna waxaanu saarnay anagu inaanu dawada iyo cuntada iyo wixii bini aadamku isticmaalaya ama cosmeticska inaanu ka ilaalino intaanu helayno laab caalami ah oo wax walba ku baarno ku hubinana wixii aanu qaban karno aanu qabanayna Badri Koosar Maxamuud telefishinka Ariel Hargeysa